kulanto wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogihii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan muuqaalkana waxaad ku daawan doontaan Iran oo mar kale ku hajamtay inay furnaan doonaan albaabada cadaabta iyadoona wacd ay ku martay in duqeymaha ay si laba jibaari doonto Trumpna waxa uu sheegay in Iran ay ka dhamaadeen hubkii ay ku dagaalamaysay maxaa ka jira hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa sidoo kale muuqaalka inta daawan doonto ku soo gudbin doonaan saldhig ee Mareykanka uu ku leeyahay dalka Qatar oo Iran bartilmaameysatay xilligan ololkiisa uu baxayo xogihii u dambeeyay bariga dhexe ayaa halkan kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelkana furasay ku soo gaara muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo saar soo gaara asxaab badan aragtidaada waa inoo muhiim inoo qurib qaybta faalada aynu ku bilaabno Iran ayaa mar kale hanjabaado culus ka soo yeeraya iyadoona si laba jibaartay duqeymaha iyo sidoo kale weerarada tooska ay la bartilmaameysanayso wadamada qaliidka carabta iyo sidoo kale wadamo kamid ah bariga dhexe iyadoona Iran ay sheegtay markaane in ay haysato hub ku filan isla markaana dagaalka ay sii wadi doonto iyadoona tusaale ahaan u soo qaadatay amaba ay ku dhawaaqday in albaabada cadaabta ay sii furnaan doonaan taasoo ula jeedo in ay sii wadi doonto duulaanka ay ku hayso bariga dhexe sidoo kale wadamada qaliidka carabta maadaama markii hore Iran daandaansi lagu sameeyay kaasoo si wada jir ay u fuliyeen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyadoona ay garab siinayeen wadamo kamid ah qaliidka carabta kuwaasoo xilligan shalayto xoogan joogan amaba ay ka shalaanayaan taageeradii ay taageereen Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil maadaama Mareykanka uu ugu baxay balantii hore oo ahayd inuu difaaci doono balse uu ka dhawaajiyay in marnaba uusan difaaci doonin kaliya uu difaacan doono dalkiisa arintaasna waxay qalbi jab ay ku keentay wadamada qaliidka carabta oo xilligan Iran si ba'an ay duqeymo xoogan ugu fulinayso goobaha Iran sida gaarka ay u bartilmaameysanaysana waxa kamid ah goobaha muhiimka ah ee wadamada qaliidka carabta ay ugu horeyso Qatar, Bahrain, Kuwait iyo sidoo kale isku taga Imaaraadka Carabta waxaana sidoo kale goobaha Iran ay bartilmaameysanayso kamid ah saldhigyada military ee Mareykanka uu ku leeyahay wadamada qaliidka carabta iyadoona sidoo kale Iran ay weerar toos ay ka geysanayso magaalooyinka ay haystaan Israa'iil iyadoona jab xoogan halkaasi uu ka soo gaarayo dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Iran markaan hubkii uu ka dhamaaday isagoona sheegay in dagaalka isagoo bilow uu yahay Iran ay adeegsatay hubkeedii balastikada iyo sidoo kale kuwa ridada dheer isagoona sheegay in xilligan Iran aysan haysanin hub ku filan dagaalkan oo xilligan uu yahay mid bilow ah inkastoo Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka labadaba xilligan ay doonayaan in Iran ay wada hadal ay la galaan Iran dhankeeda oo arintaasi diiday ayaa waxa iyana ay soo bandhigtay amaba ay sheegtay in ay haysato hub ku filan hubkii ay hore u adeegsatayna uu yahay mid iska yar iyadoona sheegtay in hubkeedii ugu cuslaa ay dib ay u dhigatay maadaama ay sheegtay in dagaalka wali uu bilow uu yahay iyadoo ay xusid mudan tahay in Iran wadamo badan oo kamid ah qaliidka carabta ay dhulka ay ku dartay saldhigyada Mareykanka oo ku lahaa halkaasi sidoo kale ila dhaqaale oo ku yaala wadamada qaliidka carabta iyo sidoo kale bariga dhexe ayaa Iran dhulka ay dhigtay waxayna wali ay sheegtay in dagaalku uu yahay mid bilow ah hubkii ugu cuslaana wali aysan la soo bixin waxay sheegtay in kaliya ay adeegsatay hubka kuwooda ugu fudud iyadoona madaxweyne Donald Trump ugu jawaabaysa amaba u cadeynaysa in Iran wali ay haysato hub ku filan ilaa ay sanado kadib xitaa hadii uu dagaalka uu sii socdo ay awood ay u leedahay inay iska difaacdo bariga dhexe sidoo kale wadamada qaliidka carabta iyo wadamada kale ee soo raaca afayeenka wasaaradda difaaca ee Iran ayaa waxa uu sheegay in Tehran ay isku diyaarisay dagaal muddo dheer socon kara isla markaana aysan ahayn mid caqli gal ah in la adeegsado hubkii ugu weynaa amaba ugu cuslaa ee loogu talagalay in sanado badan ay ku dagaalamaan Iran waxaana intaas uu ku daray in cadowgu ay u haystaan hub keed ah oo xididan sida uu hadalka u dhigay waxaana arintaasi uu kala jeedaa in wali Iran ay haysato hub ku filan oo ay ku sii dagaalanto
waxaana horey ugu soo yeeray Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iilba in Iiraan markaan ay gabaabsi ay ka joogaan hubka. hadalkaana waxa uu difaac culus u noqonayaa hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu, kuwaas oo xilligan ku fikiraya in Iiraan ay ka dhamaadeen hubkii ayna dagaalka ay joojin doonto, balse Iiraan waxay u cad ay ku martay in albaabada cadaabta ay sii furnaan doonaan. hadalkaasi oo ah mid aad u culus isla markaana xambaarsan hadal aad u weyn, waxaana ay ka dhigan tahay in Iiraan marnaba aysan ku fikiraynin in dagaalka ay joojiso ama duqeymaha ay gaabiso. waxaa xusud mudan in Iiraan ay diyaar ay u tahay in sanado badan haddii uu dagaalku uu sii socon karo xataa in ay diyaar ay u tahay oo hubkeedii weli uu u diyaarsan yahay, iyadoo farintaasi ugu jawaabaysa ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. dhinaca kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa beeniyay inuu qayb ka ahaa weeraradii lagu bartilmaameedsaday Iiraan, kaasi ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dalkaasi Iiraan uu ka mid yahay Ayatollah Ali Khamenei, kadib markii wargeys ka soo baxa dalka Israa'iil uu baahiyay in wadanka Qatar uu ka mid ahaa wadamadii ka qayb qaatay duqeyntii lagu dilay Allah u naxariistay hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. markii ugu horeysay ayay Qatar ka hadashay in aysan qayb ka ahayn, iyadoo la wada og yahay in saldhigyo waaweyn Mareykanka uu ku leeyahay ee wadamo ka mid ah Khaliijka Carabta, kuwaas oo ugu horeeyaan Qatar, Bahrain, Kuwait iyo isku tagay Imaaraadka Carabta. iyadoona Iiraan wacid ku martay in dhammaan wadamadaasi ay saldhigyada ugu yaala inay cagta marsii doonaan, iyadoona horey u baabi'isay saldhigyo badan ee uu leeyahay Mareykanka, kuwaas oo ku yaala wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale qaybo ka mid ah Bariga Dhexe. wararka kale ee xilligan soo dhacayana waxay sheegayaan in Iiraan ay gantaal culus ay la bartilmaameysatay saldhig Mareykanka uu ku leeyahay dalka Qatar, kaasi oo xilligan uu ololkiisa uu baxayo. Qatar ayaa lala beegsaday 2 gantaal oo nooca balastikada ah oo ay soo tuureen Iiraan, sida uu sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi. mid ka mid ah gantaalada waxaa qabtay nidaamka difaaca cirka ee dalka Qatar, halka kan kalena uu ku dhacay saldhigga cirka ee Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Qatar, sida ay Qatar ay shaacisay. inkastoo warkaasi Iiraan weli uusan ka soo bixinin amaba aysan ku faahfaahinin in mid ka mid ah gantaaladii ay ku tuurtay ee saldhigga cirka ee Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Qatar, balse waxaa jira khasaare xoogan oo markaan soo gaaray Mareykanka, maadaama inta ugu badan saldhigyada uu ku leeyahay wadamada Khaliijka Carabta ay Iiraan si gaar ah u baltilmaameysatay, iyadoo maalintii shanaad ay duqeymaha ay ka sii wado halkaasi tan iyo markii uu soo bilowday weerarkii Israa'iil sidoo kale Mareykanka ay sida wadajirka ay ugu fuliyeen Iiraan, kaasi oo Iiraan khasaare culus uu ka soo gaaray, iyadoona hogaamiyihii ugu sareeyay uu halkaasi uu ku geeriyooday. Iiraan markaan waxa ay diyaar u tahay inay u argudo hogaamiyaasha, maadaama Israa'iil iyo sidoo kale Mareykankaba ay ku hanweynayeen in markii Ayatollah Ali Khamenei uu geeriyoodo ay Iiraan dagaalka ay joojin doonto, sameynta hubka nuclear-kana iska dhaafi doonto, balse daasi bedelkeeda waxay sheegeen Iiraan in dagaalku hadda uu bilow yahay, isla markaana kaliya ay diyaar u yihiin in ay dagaalka ay sii wadaan oo ay difaacan doonaan dalkooda, aysan aqbali doonin. gabagabadiina xaaladda Bariga Dhexe ayaa ka sii dareysa iyadoo dagaalka uu galay maalintii shanaad, kaasi oo markii hore uu ka bilowday Mareykanka, Israa'iil sidoo kale Iiraan, iyadoona dagaalka uu noqday mid waji cusub yeeshay, isla markaana uu ku faafay wadamo ka mid ah kuwa Carabta, iyadoona Iiraan ay bartilmaameedyadooda ay sii xoojisay, isla markaana ay sheegtay in dagaalka ay sii laba jibaari doonto. xaaladda Bariga Dhexe ee shacabka ku nool ayaa markaan waxay cabasho xoogan ay u dirayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump sidoo kale Benjamin Netanyahu, iyagoona dalbanaya in dagaal kala joojiyo, xaaladana ay noqoto mid caadi ah ee wada hadalna ay la galaan Iiraan, inkastoo Iiraan ay diidan tahay. xaaladda Bariga Dhexe ayaa markaan waxay u muuqataa mid faraha ay ka sii baxayso, saameynta ee ka dhalan karta dagaalkaasina uu noqon doono mid adduunka oo dhan oo saameynaya, maadaama dagaalku uu noqday mid foolka fool ah, isla markaana uu galay maalintii shanaad, haddana ee mindiyaha la isku sii afeysanayo. Iiraan sidoo kale
Israa'iil aan raahday sidoo kale Mareykanka inkastoo ay dalbanayaan wada hadal hoose haddana waxay iska dhigayaan kuwo dagaalka diyaar u ah oo doonaya inay iska difaacaan Iran mararka qaarna Israa'iil ay duqeymo ay ka fuliso qaybo kamid ah Iran wixii xogay ku soo kordhana muuqaaladeena xiga iyo idinkugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ugu soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan balaalkana furso ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo soo gaar asxaab badan aragtidaadan inoogu reeb qaybta faalada waa inoo muhiim waad ku maasantahay daawashadaada